maamada inta u socotaa maanta burkeeda kululeyso ugu qaadanaysaa insha allah waa idinla wadaagi doonaa meeshaan u socdo soo dhawaada. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمانتين ميلو الباجوكتين وحا إلهي نوغا بريا عمر ديري عافي ماذا إن شاء الله ما أنت ماشي وحاكو أركي الدونتين عنتوين كلا دوان ميلا بدن كلا إماذين وكلما بدن مركا ما شاء الله عنتوين كان وحاواي قبلها مركي اسكو إمانايان أما أمول مركا لوتيايو كله أما salaan la iskugu imaanayo kale ama baashaal loo baahan yahay kale la iskugu imaado waxa fiican qof walba in wax yarka uu soo sameeyo oo meesha lagu baashaalayo meel qurux badan noqoto oo meel maxaa lagu gaajoonin noqoto ayaa aad u fiican. marka alxamdulillah wayna noo suurto gashay meel badan way nooga suurto gashay isku imaasho badan oo isku imaanay haday umal noqoto haday wada hadal noqoto haday baashaal noqoto ama dhinaca ehelka ha noqdo ama dhinaca saaxiib ha noqdo ama dhinaca asxaab ha noqoto waxa fiican markastoo la kulmaayo in culays la isaarin qofka walaalka u tagaysiin oo idin yeerayna culays in la saarina fiican oo adiga soo sameeysid aan soo sameeyo qofka kale soo sameeyo meeshin meel qurux badan ay noqonaysaa oo si fiican waa loo sheekeysanayaa waa la baashaalayaa waayo dad oo maxaa la dhahay gaajaysan ama dad oo asriyaysan ma wada si fiican u wada sheekeysan karaan. anaga hadii aan Soomaalinahay badana waxaan u badanahay waa la isku imaanayaa xilqaankaas oo dhan buu ku yiriyahay dadka qaar in oo macnaha ani aan soo qaadid dadka qaarna waxay la tahay ceeb si u geynina waana loo yeertay anaga hadii lagu yeertay adiga waan ku casuumay kaal lagu ma dhihin maanta wada hadal jiro maanta waa sheekeysanayna maanta waa baashaalayna xilli hore isku keen dambeysay maalin Hiblaayo isku imaan karnaa guriga Hiblaayo ma ku wada kulmi karnaa sheekada taas waa kuma darinana casuuma kuma darin qof adiga aad dalbatay ama casuumaysid kuma jirto sheekada isku imaashaha waa la isku imaanayaa ilaa 10 ugu yaraan 3 saac saac meesha la sheekeyna la fadhinaaya waayo qofkii adiga u imaatay maba awoodaba intaas oo qof inuu qaabilo maba awoodaba adi marka inaa isxilqaantid waa ku fiican tahay way ku fiican tahay adi soo qaadi qofka kale u dirtid wax yar guriyiin ka soo wada qaadada awoodin xitaa soo gadid meeshina si fiican loo baashaalo wax fiican waaye. marka meelo badan oo hadda u jeedin cuntooyinkan way kala duwan yihiin meelo badan oo isku imaasho marka fursad la isku helo kale ama marka ilmaha laga wada hadlaayo kale ama marka qof oo xanuunsan la soo booqanayo kale ama qof la soo booqanayo aad u fiican tahay inaad sameysid ma aha inaad dhahdid waa la ii yeeray aniga maxaa iga galay inaad dhahdid ma aha xilka qof walba uu saaran yahay qof kasto qof soo booqanayo la isku imaanayo uu saaran yahay hal qof kaliya ma saarno. marka aadna u fiican tahay arintaas in mar walba lagu baraarugo ama lagu dhaqmo wax aad iyo aad u fiican waaye. marka ma sha Allah waa idin salaamaya dhamaantiina soo dhawaada meel walba joogtiin waxaan idin leeyahay caafimaad iyo cimri dheer ku waara insha Allah. in qofka walaalka haduu ku yeerto oo ku dhamaanta inaan sheekeysanaa rabnaa oo meesha lagu wada kulmaayo qofka kaligiis in culays kala saaro waa laga fiican yahay waayo waxa aad naftaada jecleen nafta walaalka inaad ku dhigtid waa laga fiican yahay. soo dhawaada ayaa idin leeyahay dhamaantiina caafimaad ayaa idin kaga tagay. Assalaamu calaykum.